bilaabana dalka Talyaaniga kooxda Milan waxa la yiri tooshkeedu soo reeftimay Brian aad Sandero kooxda Milan iyadoo kaalinta toddobaad ku jirta kulan ay habeenkii xalay ciyaartay kulankan oo dabcan kulan hore u baaqday oo markii buundadii wadanka Talyaaniga ay burburtay ay ahayd toddobaadkaas iyaga iyo Genoa inay ciyaaraan ay habeenkii xalay la ciyaaray kulanka oo kaliya Talyaaniga la ciyaaray AC Milan waxay ku badisay 2 gool iyo 1 qaybtii hore 4 daqiiqo markay socotay ciyaaryahan Suso ayaa goolka u dhaliyay Milan hase ahaatee mid kamid ah ciyaaryahanada difaaca uga dheero la yiraahdo Romagnoli ayaa waxa dhacday inuu gool oo tareeta iska dhaliyo isla asagii ayaa kooxdiisa 90 daqiiqo markay mareysay 3 dhibcood ay u baahan tahay kooxdiisu suura galiyay oo goolka guusha isaga ayaa u saxiixay taas waxay suura gelisay kooxda kubadda cagta ee AC Milan inay kaalinta afraad ee horyaalka wadanka Talyaaniga ay soo fariisato halkan oo muddo sanad ah ay ugu dambeysay kooxdan inay timaado haddii halkaa ay xajisato kooxdani waxa suura galaysa in ay sanadka dambe ciyaaraha Champions League u soo gudubto oo hadda kooxdu waxa ay leedahay 18 dhibcood kooxda koowaad oo Juventus ahna waxay leedahay 28 dhibcood laakiin kooxda kaalinta labaad ku jirta iyo ayaga 4 dhibcood ayaa u dhaxayso Inter iyo Napoli ayaa min 22 dhibic leh halka AC Milan ay soo fariisatay 18 dhibcood walow Lazio isku dhibcay yihiin laakiin AC Milan ayaa gool tirsi ku sareysa oo 5 gool ay dhinaca gool tirsiga kooxda Milan ay ku sareysaa waan gartay dhinaca Spain hadaan tagno waynoogin dhibaatada haystay kooxda Real Madrid iyo tababarahoodii oo muddo la filayay in shaqada laga fariisin doono tababaro cusub ayaa qabtay ciyaartiisa ugu horeysay ciyaaray xaalku sidoo ah aad dabcan ninkan hadda la magacaabay Solari oo isagu kamid ahaa dadka kooxda Real Madrid muddada kamid ka kooxeerka labaad ee kooxda Real Madrid ayuu leelinayay ciyaartoydii hore kamid ahaa dabcan xilli ka fiican oo kooxda loo magacaabi lahaa ma jirto waayo Copa del Rey kooxdiisu waxay la ciyaaraysay koox kaalinta saddexaad aan raadi heerka saddexaad ee horyaalka wadankaasi Spain ka ciyaarta marka waliba cirifka Morocco xuduudka degan kulanka waxa lagu ciyaarayay Morocco gudaheeda 4 gool iyo waxba ayaa Real Madrid ku badisay dabcan waa soo dhaweyn wanaagsan laakiin la arki doonay horyaalka wadankaasi marka la isugu soo noqdo toddobaadkan Sabtida iyo Axadda oo la ciyaaro sidaasi Copa del Rey qaybta labaad ay soo gudubtay kooxdu Córdoba iyo Getafe ayaa ciyaaray 2-1 Córdoba ayaa laga badiyay sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa 1 gool iyo waxba dirqi ah waxay kaga badisay kooxda Leonesa oo iyaduna kooxaha heerka saddexaad kamid ah waliba waxa xusid mudan in 90 daqiiqo markay ciyaarta ay gool kooxda Barcelona dhalisay walow isla xilligaasi kooxda Leonesa ciyaaryahan calaamada gaduudan loo taagay waan gartay war cusub oo soo baxay oo sheegaya in FIFA ay ka fikirayso in tirada qaramada ka qayb galaya koobka adduunka ee 2022 ee lagu qabanayo dalka Qatar laga dhigo 48 halkii markii hore ka ahaayeen 32 aad waa sidaas dabcan arintan FIFA muddo way qorsheynayso oo qorshihii hore wuxuu ahaa in 2026 koobkaasi la ballaariyo oo la kordhiyo ka soo qayb galaya laakiin madaxweynaha FIFA Gianni Infantino oo hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay doonayaan haddii ay suuragal noqoto in sanadka 2022 wadanka Qatar lagu qabanayo inayba kordhiyaan oo ay ka dhigaan 48 dal laakiin waxa uu yiri waa haddii ay isku afgartaan wadanka Qatar oo koobka martigelinaya iyo waliba xiriirada kubadda cagta ee caalamka haddii marka taas ay suura gasho wax noo diidaya malahan buu leeyahay inaanu sanadka 2022 ka dhigno laakiin Sandero waa sheeko ay dabcan sida uu isaguba sheegay madaxweynuhu waqti qaadanaysa laakiin kordhintaas iyo haddii suura galayso waa in durba go'aan laga gaaro waayo haddii uu bilowdo sareebka koobka adduunka dabcan waxay noqonaysaa in arrintaasi aanay suuragal ahayn marka la arki doono halka sheekadaas ay caga dhigato